halkan aan ku sugannahay waa dooxa ama bariishka dubureed ee degmada Sheekh duleedkeeda ku yaala waxa halkan ku arkaysaan godkan oo labadii sano u dambeysay bariishku bartanka ka kala jabay waa halis ku socota baabuurta inta badan dariiqan marta kuwa xamuulka iyo waliba kuwa rakaabka ahba haddaba waxaan wax ka weydiin doonaa baabuurta dadka wata ee darwalinta halista uu dooxani ku hayo ama bariishkan kala jabay ee muddada labada sano ah bartanka ka kala go'an wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka ee Soomaaliland ayaa iyadu labadaas sanaba waxa ay ku daawanaysaa ummadda godkaasi arkaysan sida uu eegyahay waana halis weyn oo dadka dhabarjab weyn ku ah iyo waliba gaadiidkaba kamitahay darwalada baabuurta weyn ee hada jeer mara ee wadadani godkan ka waran halisteedu ku hayo magacaaga loo sheeg magacaaga Cabdixaar Maxamed Baleeyahay go'an waad aragtaa dhibaatada lagu hayo macni qof boor intaana farta waxaan ku haynaa goormo idin la dumaya gaari culuso 700 kiisidana hogan ma ajinayo macnihi ilaahay baa wax bixiyo horta marka hore macnihi dadka bilaadankaana dadku inay is wada kaashadaan baa fiican macnihi ama dad macnihi haddaynan macnihi is wada kaashan waxba qabsan kari mayno waayahay wasaaradda u xil saaran wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ayaa u xil saaran wasaaradda maxaad oran lahayd wasaaradda waxaan lahaa wasaaradda waxaan oran lahaa wadada naga hagaajiso wadadu ilaa iyo Sheekh ilaa iyo Burco waa la mid ma bixisaa cashuurta wadada ku waajibtay waan bixiyaa hay mar walba laga qaada waayahay marka maxaad baa ku diraysaa wasaaraddan baa ku diray hada wadadana naga soo gaadho naga xaqiiqo khatar baad ku sugayn halka qaar baa xitaa kula dhacay taayirka meeshu way gariiraysaa khatar badan bay ku sugan tahay awal halkaas la banayn jiray xitaa sanadka ciduba isma soo agtaagin marka dhibaato badan baan ku qabnaa qaar baan iyagu meesha ogeyn oo war hayn iyagu xoog soconaya soo gala baabuurta inta badan wadada mariyo xoog bay ku soo galayaan marka meesha halisteedu waa badan waxa loo baahan yahay in wax laga qabto dawladda iyo shicibba ilaa marka ay gudkano sidanaha sanad iyo dheeraad laba sano dhow saas oo laba sano madax la gashay intuu saaha had iyo jeer baabuurta markii xamuulka taarantii ka waran khatar baan ku suganay in taayirku naga qarxo markaanu gidaarka ku dhawaano taayirku gidaar ku dhufano iyana lagu godku labada umay wata calaamad ka muuqato waa aragtaa meesha gawaarida ya aduma bixisa cashuurtii kugu waajibtay way bixiyaa hadda waraaqyo dhan haya tii sanadkan haya dawladda hoose oo tii maaliyadan haya waxaan hayaa ku weeriyay maalin walba halkan habeen dhaafan mar halkan qasar waa geysto qaar ba intay godka ku dhaceen iyagoo ku weeriyay xoog soconayay intay ku dhaceen ba halka ku go'oonba wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka oo shaqeedu tahay inay bariijada iyo wixii wadooyinka wixii dhibid ku haya wax ka dhabato aad iyada fariin u diraysaa waxaanu fariin u diraynaa iyaga awshu dalkay dawladda xukuntay iyo hawlaha guudi weynay wax ka qabtaan oo arkaan waxaan khatartan meel shataal leenahay dawladda hadda siyaasadda iyo waxba la isku haystaa buuq waa meel walba ka taagan gobolladii marka waxaan leenahay inta buuqan iyo siyaasad la iska daayo waxan in wax la qabto halka wax laga qabto dadka jidadka la qabto halka ilaa iyo baash meesha la yiraahdo berbera 4 saac baan ku soo jiraa oo godadkaas magacaaga noo sheeg saaxib magacayga Maxamed Cabdi Xasan Baleela bal ka waran hadee jeer wad martaa rakaabna wad qaadaay godkan bariishkan dubureed ee go'an bal ka waran xaaladiisa wallahi godkan dhibaato weyn buu nagu hayaan yarayn waliba siiba habeenkii bay ugu daran tahay oo meeshan hoggaa weyn baa ka qodan baaluuna oo kuwa labada dacal ka maraya wadadu waa wada dhimaadun khasaarahaas aad naga haysto wada artan waxaan leenahay xukuumaddan iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku mashquulsan inay dadkan dib u eegto wadadan iyo bariishadan go'an ay naga hagaajisaan leenahay wasaaradii shaqadan lahayd maxaad oranayda wasaaradii shaqadan lahayd waxaan leenahay shaqadaadii kale eego wada yahay wada aragtaa wata meel walba dabashay cashuurtii waajibka lagu lahaan ba bixisaa ها meel taas ugu yaro imkaasi tayo taas ugu yaro waxba nagu baaqdo hadda la iga soo qado barxa la iga soo jaray imkana waxaan gelayaa bartan sheekh imkana la iga qaday khasaaro wadanka dhacay ma bariiska ha maal haddadan baaban soo maray imka qaar ka yaala oo wada dhacay waxaan ku arkay maalin walba waa khasaaro oo joogo baabuurta taayir kala dhacda saabirtu magacaaga noo sheeg waxa la Shiina Maxamed Xaaji Salaamaan Shiinow waxaad noo sheegtay inaad beertan bariishka dhinaciisa aad ka shaqayso godkana sida la sheegay 2 sano imka saas uu dhaawac u yahay bariishka 2 sano iyo kasoo dhaawac goobjoog u ahayd ee khasaare ka soo gaadhay gaadiidka iyo dadkii watayba waxa ka soo gaaray dhaawacyadii aan waa guray
waxa weeye dhowr iyo 10 baabuur ka badan dhaawac anigu mar walba ku dhacaan anaa gura anigu beertana ka shaqeeyaa biriishka dhinaciisa marka gaadiidku biriishka daloola dhibaato xooga ayuu ku qabaa mooy wasaaradda waxay u sabab weyday iminkana ugu dumaya wadga arkaya dilaac iyo baabuurta ku taayir kala dhacayso dee dhaawac badan bay baabuurta ku qabtaa baalka waynu aragnaayo biriishka laba wadada oo forar marka ay soo galayso laba dhinacba baabuurta xawli bay ku socdaa marka baabuurta aad aragtay dhibaato ku dhacday xamuul baahayn mise rakaab baahayn waa xamuul bay badnaay rakaab midaan rakaab hayna wadada marayuha dhowr iyo 10 ba ka tiri dhowr iyo 10 inaan hubo anigu oo dhaawac aan ka qaaday waliba marka qaylada ugu horeysa ee jugta iyo waxbaada maqlaa anaa maqlaa haa iyo qabta iyo qaylada أنا مقلا وهرب سميسا مركز مقاش مركز قرمت ما صوص سميا ورسو قرمته ما حد كلي قام كرسا مركز يعني ما ظن وان تلفون وقرا وحنا قاري بريش كل عسوا كعاو باورته وقايل شيخ بالله هذا الشيء شيخ بالله خذ شيخ بالله هذا شيخ قرمت دق شيخ والله يصدر لا كان امبلاس يكون شيء داوع سيبه ده انا دق امبلاس شيخ الله لوga soo diray sheekh ambalaas wuxuu ka yimid sheekh buu ka yimid markii hore burcu ka yimid ka halka ku dhacay markii dambana dhaawac qaaday qof dhaawac usay way sheekh baan ugu telefoon ugu yeeray oo dhaawaciya uu qaaday way ambalaas sheekh weeyaan way gurmadkaas aanu sameeyay barka wada xilli roobaadka ee markii biyuu fariistaan oo kalena dhaawac uu sii kordhabaa la biriishka maxaa ka jira uu fariista biyo waa ka maanta shalay baa roob baaday way waa kuwa ku fadhiya way ku fadhiyaan boodiga arkaya biyo waa ku fadhiya shalay uu daayba waka marka uu sii jilcaa marka uu jilcayo biyo dalkaasi galay uu sii jilcaya boodiga arkaya baaburta aadka alla dhacayso taayirka محمد عبد الله لا محمد عبد الله waxaad ka mid tahay dadka biriishka ag degan ee beeraha ka shaqeeya balkawar aad baan ugu dhowdahay balkawaran biriishkan iyo dhibaatada inta badan gaadiidka u geysto dhibaato badan buu ku hayaa waayo imika intaanu joognay ilaa baabuur fara badan oo dhowr iyo 10 ba halkan wax ku noqotay qaar ba si wax loogu noqdayba dhaawac iyo dhimasho wala waana jirin haddana dhaawac fara badan baa ku dhaawacmay dadka waayahay marka qaylada horeysa jugto ay dhacdo maxaad samaysaad maqasho waxaanu samaynaa inaanu gawadhida wixii dee wax noqda aanu dee wixii dad ee dhaawaca amba wixii aan u gargaari karno aan u gargaarno amba aanu la gurno amba aanu gawadhida u sii eegno amba aanu dee wixii aanu tari karno waanu tarnaa waayahay adoo qof aan qalabna haysan dawana haysan ayaa tahay marka gurmad kale ma u samaysaayo cid ma u garaacdaa si lagu soo gurmado walaahi dadku dee lambarradu uu iska wada sitaayo qofku dee haddii markaa haayo dhibaato ay badan dhacdo aanay waxba taleefon garaaci karayn dadku waanu u garaacnaa sheekh oo kale ma la hadashaan marka wax dhacaan haa markaa haddii aanay markiiba dee telefoonno dadku wada sitaano isla markiiba waxbay garaacdaan see haddii aanay markaa haynin amba ay dhaawacooda culus yahay waan u garaacnaa waayahay had iyo jeer marka roobku da'aan waxaa la yidhaha biriishadu waa nugul bal ka waran marka roobku da'ay biriishku siduu sii noqdaa kolley waxaan filayaa dhibaatada ugu badan waxa xagga roobku kaga yimi biriishka waayo xaggiisa hoose markaad aragto waxaad arkaysaa in biyuhu ay ku fadhiistaan guudkiisa dabeedna ay markay cabo ay uga baxaan xagga hoose markaa dhibaatadan jabitaanka waxa ugu filan baan filayaa biyaha waayahay biriishkan waa iska agdhowdahay dhowr jeer ayaa la sameeyey oo dhowr meelood sano kale u gooday hadii jeer dad badan baa waxay aaminsan yihiin in dad ay biriishkan ay dhaawac u geystaan aduu fikirka bal ka waran والله هذه يجري ولا يرحايو قواديدا مركم هذه يجري هلكن joogno waxa la yiraahdaa dadkiina dhowba bahalka waxyeeleeyaan bajabiya way taasi way badan tahay wala laakiin seemay ciidama jabiso aan waxaan filayaa in ciid kalena iman oo jabin annaguna aan waxba gaarsiin waayo wad arkaysaa biriishka markaad u fiirsato inuu gaboobay imko uu jabitaankiisu dee ay mid isagu daadanaya yahay marka waxa loo baahay biriish cusub la sameeyo
marka waqtigiisii uu qaatay waayo ta kale xagga roobkana biyaha ku fadhiisto oo marka taa qudhadii biyahuna waxay u geysteen gaadiidka waaweyn xamuulka ka waran markay marayaan waxay iyaga dee hadiya gawaadhida culus baa ayaa jabitaankan kulli sii kordhisa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed